xaflad lagu maamuusay ardadii kaalmaha hore ka gashay imtixaanka nihaayiga ahaa 2022-2023 ee macadka Imaam Shaafici ayaa lagu qabtay xarunta macadka ee deegaanka Cagaarn ee gobolka Mudug. Xafladda waxaa ka soo qayb galay marti sharaf fara badan oo kala duwan sida maamulka deegaanka, culamo diin, waalidiin, arday iyo qaybaha kale ee bulshada. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. waxaanu mahad celinaynaa walaalaha culimada safarka dheer noo soo galay ee xafladda naga soo qayb galay ee jidka inta leeg u soo maraysay annaga inoo la qaybsadaan farxadda ardadeena ay noogu dhiirigeliyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala abaal mariyo dhammaan akhyaarta waalidiinta culimada macallimiinta ardayda hooyooyinka dhammaantiin aad iyo aad baad mahadsantihiin xafladda saad quruxda badan oo noogu soo agaasinteen oo noogala soo qayb gasheen waad ku ammaanantiin ilaahay ka abaal mariyo xafladdu laba qodob ayay ka hadlaysay ama aan ugu talagalnay. qodobka koobaad wuxuu ahaa inaanu macadkii xafladdii furitaanka ayaan ugu talagalnay inaan ardadii iyo waalidiintii aan u sheegno oo ay nagula qabsadaan inaan macadkii furnay oo asbuucii labaad hadda aan dhexdiisa ku jirno. waxaa kaloo xafladdu ka hadlaysay ardadii kaalimaha gashay sanad dugsiyeedkii aan soo dhaafnay inaanu ayagana xusno insha Allah ta'ala iyadoo aan siin doono insha Allah ta'ala abaalmarino aan rabno insha Allah ta'ala inaan kula qaybsano farxadooda ay kaalimaha ay galeen jazakumullahu khairan. marka xafladdu intaas ay daarnayd xafladan waa xaflad qur'aan waa xaflad runtii diimeed waa xafladaha la qabto xafladda ilaahay subxaanahu wa ta'ala agtiisa ee lagu kalgacayl badan yahay sababtu waxa weeye waxaa lagu muujinayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala shaqaa'irtiisa waxaan marka naftayda iyo tiinaba aan dardaarmayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala cabsidiisa inta hadda naftayda iyo tiinaba aan ku baraarujiyo da'yartaan quruxda badan oo runtii gabdhaha xijaaban oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala quruxda ka muujiyay wiilashaas sharafta leh oo quraanka xambaarsan oo khamiisyada qaba ilaahay awlaadeennii oo dadka runtii waalidiinta ah galabta aad bay u faraxsan yihiin ilmahoodii oo ilaahay diintiisa baranaya quraankii xifdinaya diinta ilaahay iyo furuntii kala duwaneed baranaya farxad iyo waxay u tahay iyo qalbi wanaag baynama laga yaabo waalidka qaybtood inay walwalsan yihiin oo ay walwalsan yihiin kubad 40 saac ciyaarayo filin uu daawanayo darbi uu taagan yahay amal la'aan iyo hawl iyo 40 saac la ceyrsanayo waa nimco runtii aad u weyn oo lagu baahan yahay qof walba halkan fadhiyo waalid ah inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala baryo inuu ilmihiisa ilaahay u hagaajiyo. aniga hadalkaygu wuxuu ku kooban yahay inaan marka hore ilaahay u mahad celinno tabaaraka wa ta'ala labaadka inaan idin soo gaarsiino maamulka degmada odayaasha magaalada waalidka maamulka markaska macallimiinta ardayda dhammaan dadka magaalada ku nool inaan soo gaarsiino salaan aad u qiimo badan oo aan idinka wadno dadkii ilaahay tabaaraka wa ta'ala uu sababta uga dhigay inay xaruntan cilmiga aasaasaan oo labada doctor ay ugu horeeyaan bulshada hawl ay u baahan tahay oo waliba hawlaha ugu muhiimsan ka mid ah ayay ku mashquulsan yihiin waxa ay shaqeeyeen ayaa laga yaabaa xarumo cilmi inay ka aasaaseen haddana ay qorshaysanayaan inay kuwa kale sii aasaasaan in marka salaantaasna aad naga guddoontaan mar walbana aad u ducaysaan idinkana
khayrka iyo wanaagga ka muuqda ee lagu qaabilay xaruntan iyo sida loo maamulo iyo sida looga warqabay iyo say magaaladu u soo dhaweysay aan idinka gaadhsiino. salaantii waa guddoonnay aad noo keenteen culimaalla aad nooga keenteen digtooradii asaasayaasha u ahaa maxadkan sharafta badan aynu galabta isugu nimid. ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr badan ha siiyo, dembigooda allaha dhaafo, cimrigooda allaha dheereeyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaag badan bay noo sameeyeene iisaan abaal bulshase u leeyahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaame ha cafiyo. ayaga intaasaan ugu ducaynaynaa, waanan u ducaynaa maalin walba oo xaflad kasta iyo munaasabad kasta aan isugu nimaadno aan xitaa meeshaan ahayn waan xusnaa oo waxay noo yihiin bilariska ay ku xisaabtanto cagaaran. khayr badan allaha siiya intaasaan uga harayaa. macallimiinta dadkan soo saaray quruxda badan runtii iyo maamulahooda aad iyo aad baad u mahadsantihiin. maqsuud baan ka nahay muuqaalkan quruxda badan oo sharafta badan oo wejiyadan aan la heli karinin. aad iyo aad baan uga hambalyaynayaa. waxaan arkaynaa macallimiinta iyo maamulkoodaba iyo culimmada iyo shiikha deegaankuba dadaal badan inay sameeyeen. dadaalkiina mirihiisii waa noo muuqdaan. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waalidiinay reerba reer buu ku dheggan yahay. ilmahaagu hadduu wanaagsan yahay oo reerkaa kugu dheggan ay wax badan ka khaldan yihiin, haddee waxaa tahay ninku daafad dugsanayo dhinac ay ku hayso saamayn badan bay kugu yeelanaysaa. si taasoo ay meesha uga baxdo, reer walowba reerka kugu dheggan diinta ku baraaruji, masaajidkeenu yimaado ku baraaruji, islaamka ku baraaruji, akhlaaqiyaadka quruxda badan oo aad ka faa'iidaysateen ilaahay baa idin karsiiyey, waana ku mahadsan yahay. ayagana inaad gaarsiisaan isku dayo xil badan saara. waan hambalyaynayaa ardayda kaalimaha koobaad u soo gudbayoo la guddoonsiinayo abaalmarinta. waad mahadsantihiin, waa mahadsantihiin. kuwiina harayna waxaan leeyahay we can develop if we work hard. adadaashaan baa taa ku gaari kartaan adinkuna. oo u mahad celinayaa digtoorka iyo culimada safarka dheer soo gashay oo noo soo saciishay oo dacwada iyo diinta mar walba nagu soo noqnoqonaysay ama deegaano badan oo dadka ixyadiisa nooleyntiisa u shaqaynaysay. oo safarkooda waxaan leenahay safar mashkuur Allah ka yeelo, miisaankiina xasanaadkana Allah badiyo, ajir iyo xasanaad badanna Allah idinka siiyo. waxaan u kala u mahad celinaynaa, waan u ducaynaynaa دكتورada دكتور عيسى حمدي iyo دكتور عبد العزيز جزاكم الله خيرا الدنيا آخرة. الله يدين أبال مريو ميزانكنا حسناتك الله بديو. دعاء waxaa noo gasheen kama abaal gudi karno, ducadeedana ma dhameyn karno. الله يدين barakeeyo. جزاكم الله خيرا. aan guddoonay salaanta sharafta lahayd oo inoo keeneen دكتورada iyo culimada diinka inoo yimid. meesha inooga keeneen waa meeshii layrku inooga baxayay. anugu ma aaminsaniba dhaca hadda isweydiin mayno, saacad walba wax socdo weeye. keena tukanaya iyo ka fadhiya waa u duceeyaan. haddaynu aamusannahayna ducadu way u socotaa. haddaynu isweydiinana dee wayba ka sii fiican tahay. ilaahay ha ilaaliyo. waxay ka shaqeeyeen aakhirana waa ku helayaan, adduunkana waa ku helayaan. أجري يا بال أنت وكهليان إلهي عذوقها وقبته عمرقودنا كل يوم عافيمات في عنا هسيو شغال هذا كل يوم كرديو علماء الروك أنت سلام تنسيدو كله تكله نشيخ مجالده ماموران هالكان كا رجوا مدحض وجهي وهالكان شوقه وحن له يجعل عمرقود الله ديري أبتدأنا الله استرو وينور شقيان waxbayna gaba qaadaan lacag laan bayna ugu shaqeeyaan. boqolkii qof 50 ama 60 ama 70 lacag laan bay ugu dhigaan waa ogna. sheekha macallimiinta, waalidiinta, ardada, hooyooyinka, odayaasha, gudoomiyaha deegaanka iyo dhammaan odayaasha isugu yimid xafladan waa salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaan aad iyo aad bayaan u faraxsanahay. anigu waxay ii tahay farxad weyn wajiyaashan dhalinyarada ah ee quruxda badan iyo dadkan taxfiidka iyo culimadan badan. ilaahay baa ku mahadsan. lagama sheekayn karo aniga farxadayda. meeshaan aanu joogno aadka u quruxda badan. ilaahay baa ahaysiintada iska lahaa subxaanahu wa tacaala. laakiin waxaan rabnaa haddaanu nahay deegaanka reer cagaaran
inaannu u mahad celinno oo u ducayno dadkii maalgelintan iska lahaa hadday hantida iyo dhismaha quruxda badanoo meesha ka muuqanayo gobolka mudug baan ka dhisana ay tahay hadday tahay dadka xufaadda oo wax la baray hadday tahay dhammaan maalgelinta ka muuqanaysa deegaanka oo cagaaran ay caamka ku tahay wax dadku wada haysta ma ahan marka waxaan uga mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu watacaala ka sokow diktooradda iyo diktoorka waxaan leenahay waan u ducaynaynaa ilaahayga subxaanahu watacaala inuu adduun iyo aakhiraba liibaano oo miisaanka aakhira ugu daro baan ilaahay u weydiisanaynaa keliya waxaa weeyaanoo kaleeto aan la laysanba karinba dhismaha markii la soo galo gudihiisa iyo dadka meesha ka baxaya markay suuqa marayaan quruxdooda iyo sharaftooda iyo karaamada ka muuqanaysa qof kasta oo iimaan leh iyo nin kasta oo reer magaala markuu meeshaa soo maro oo meeshaa qiimeeyo wuxuu ku hindisoodaa talo meeshaan ma soo degtaayo ardada tan waxaan ku soo darsataa deegaankan waxaan ku soo darsataa oo waalidiinta xarafka bacda naga ilaaliya balaay ku dhuftay bala ku aragtay bala ku seeqaday bala ku degtay balaka bacda naga ilaaliya maxaan adeegsanaynaa alla yahdiik allah ku soo hanuuniyo odaga xataa u ducee odaga ku dhibaya waa ognahay dhibaataa jirta yaamahan ilaahu soo hanuuni ilaahu xaqa tus ilaahu rigu soo jeedi ilaahu war albaabkaas furno waa adcuuni maxaa ku xiga maad garaacdaan ilaahu soo hanuuni ardaydana كل إنان بما فيه تنضح أما ينضح شيء كستوحي لقوش عكابر حمو قنايا كوب سوق هذا فيمتو كشب سو مقدودنا عانا كشب سو معدا وروح الذي كوكورا الذي كان حركو واحد الذي كوكورا وخير وحديثه وقرآنه ووحو البال الذي كان حركو أنت وحين كو سلامة يا تحية الإسلام مشايخ النوتمد يا ضمان معلمين تا ضدك عقلك وصاحبك يا علماء hooyooyinka iyo ardada dhammaan dadka bulshadaas ka soo qayb gashay meeshaan oo reer cagaaran iyo marti sharafka nootiid basalaanta islaamka ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ثانيا waxaan gudoomaynaa salaamta qaayaha iyo qiyam kale oo dhakhtarku noo keenay noogana keenay dhaqaatiirta kale aanoo afka deegaanka ku hadlaya cagaaran waa in ka gudoonay salaamta doctor aad noo keentay dhaqaatiirta noo keentay ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalkooda jazaha ka dhigo waa la arkaa meeshaan la oran karo half milyan lacagaha baa ku baxay dhaqaalahaas ay jeebkooda ka bixiyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u barakeeyo dadkan quruxda badan oo wujuhda quruxda badanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo cagaaran macallin baan ka soo noqday iyadoo koombooyin dadku furfadhiyo aan ku firfiriisnay baan ka soo noqday maantana alxamdulillaah miisaskan booy baa laga dalba daasadii maxaa nooga bedelay kuraas dubay laga dalbay ilaa ma hadda markay iskale magaalada tan ilaahay subxaanahu wa tacaala waayna barakeeyay waayna barwaaqeeyay waxaana quruxa oo diinta ilaahay dadkaas la bisan baana ka muuqda dhaqaatiirta meesha tan sababka noogu noqotay ilaahay subxaanahu wa tacaala sababka nooga dhigayna dambigooda allah dhaafo ilaahay subxaanahu wa tacaala xayaata dayiba adduunka ku noolaadeen aakhirana acla almanzil